sidaad la socotaan waxaa toddobaad iminka waqti laga joogo la iclaamiyey in la qabanayo shir weynihii ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier sidaa xogayaa guud sheegay ururku haddii aanu nahay hogaankii ururka shirku wuxuu ku mudaysnaa go-aan gole guddoomiyuhuna saxeexay guddidii qabanqaabada ee iminka qayb ka midii iclaamisay shirkan waxaa lagu kala diray go-aan gole go-aan guddoomiyuhuna saxeexay sidaasi lamida ayaa lagu mudeeyey qabsoomidda shirweynaha ururka suxufiyiinta Somaliland go-aan guddi fulineed guddoomiyuhuna saxeexay oo koobigii kaa yahay saxeexii xubnaha guddiga fulinta ee go-aankaa guddoomiyuhu saxeexay goobjoogga ka ahaa saxeexayna waa kuwaas haddaba sida aad la socoteen waxaa in muddo ahba soo noqnoqonaysay khilaaf ururka suxufiyiinta Somaliland Soldier laga dhex wado xukuumaddu ka dhex wado iyadoo hay-adaha civil society-ga ku magacaaban ee non state actorska looguna talagalay wadamada aan dowladuhu ka jirin burburku ku dhaco ee systemka dawliga oo shaqeeya aanu ka jirin wadamada reer galbeedku ay u isticmaalaan ururada ay u isticmaalaan ururka SONSAF la yiraahdo ayaa daraf ka ahaa khilaafkaas Soldier ee soo noqnoqonayay wasiirka warfaafinta daraf ka ahaa maareeyaha TV-ga qaranka daraf ka ah maanta waxaanu ummadda u sheegaynaa iyo dadkii suxufiyiinta ahaayeenna doortay in ururkii Soldier ee suxufiyiinta Somaliland lahaynee madaxa bannaanaa xukuumaddu burburisay lana wareegay xoogna lagula wareegay xalay ugu dambeysay xubnaha hoggaanka ururka noqon doona lagu saami qaybsanayay wasaaradda warfaafinta oo guddoomiyaha nasiya iyo ku-xigeenka nasiya iyo xogayaha guud nasiya ay sheekadu taagnayd xukuumadda laftooda kuma wada eedaysna wasiirka maaliyadda ku eedaysan iyo wasiirka warfaafinta oo qayb ka ah arrintaas suurtagelinta inqiraabka waxaanu qabnaa oonu ummadda u sheegaynaa oo reer caamka u sheegaynaa oo axsaabta qaranka u sheegaynaa golayaasha qaranka u sheegaynaa garsoorka u sheegaynaa rayul caamka u sheegaynaa ururada deeqaa bixiya kuwa dimuqraadiyadda ilaaliya safaaradaha in xorriyatul qowlkii Somaliland lagu soo duulay ururkii Soldier suxufiyiintu mihnadayaashu aasaasteenna la baabi'iyey oo xoog lagula wareegay shirkaa berita dhacaya waxaanu suxufiyiinta meel kastii joogaan u sheegaynaa suxufiyiinta Somaliland ee xorriyatul qowlka iyo madax bannaanida ku shaqeeya inaan shirkaasu shirkii Soldier ahayn ee shir wasaaradda warfaafinta iyo SONSAF wadawadaan uu yahay waxa ka soo baxaana aanay ahayn wax xalaala ee waxa ka soo baxaana ay tahay natiijo xukuumaddu ay sii samaysatay waa saami qaybsiga xalay ka dhacay wasaaradda warfaafinta ee hoggaanka lagu kala qaybsanayay sidaa daraaddeed haddii aanu nahay hoggaankii ururka ee ugu dambeeyey ururkii Soldier waa lagu soo duulay waana la baabi'iyey shirkaa beritana shirkii ururkii Soldier ee madaxa bannaanaa maaha xubnaha halka fadhiya waa qabanqaabadii qayb ka mid a qabanqaabadii go-aankaa golaha ayaa lagu kala diray markii hore guddigaa saxeexay guddoomiyuna uu saxeexay shirkana waa lagu mudeeyey February inuu qabsoomo xubnihii 4 ka mida ayaa shaqaynaya maanta qabanqaabada oo hawshan wada dadkana u yeedhaya min Caarigaabo oo qaadacday Booramo oo qaadacday Berbero qaadacday regioniska dadkii joogay ee madaxa bannaana way wada diideen meelaha qaarkoodna waxay uga yeedheen shaqaale dowladeed TV-ga qaranka waxaa bari ka imanaya shirkaa la furayo 13 xubnood idaacadda waxaa ka imanaya 13 xubnood maya suxufiyiintii madaxa bannaanayd maya dadkii xorriyatul qowlka u dagaalamayay maya dadkii ururka Soldier aasaasay hoggaankii xalaasha amee ururkii mee waxaanu ummadda u sheegaynaa Soldier in la baabi'iyey xukuumaddu gacanteeda ku baabi'isay iyo ururka SONSAF sidaa daraaddeed waxaa ka soo baxa inaan loo aqoonsan saxaafad iyo urur hoggaameed oo madax bannaan Soldier ay maanta saqiirto sidaa lagu baabi'iyey والسلام عليكم ليري waxa qabanaysa ururka suxufiyiin guddiga qabanqaabada ee aanu kala dirnay 3 xubnood oo kamida iyo guddoomiyaha oo layiri uu la socda arrinta waxaanu shirka sheegaynaa inuu shirkaas yahay shir xaarana
halkan waxaanu ku haynaa go-aankii aan guddida fulinta ee ururka dib ugu dhignay shirka wax dambe oo hore loogu soo dhigay oo guddida fulintu ka shirtana aanu jirin shirkana ay gacanta kula jiraan wasaaradda warfaafinta iyo ururka la yidhaahdo arrimaha soomaaliya sonsof ee arrimaha soomaaliya ka shaqeeya waxaan u malaynayaa arrintan inay ku jirtay wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya oo la yidhi xoriyatul qowlka iyo lagu soo afjaro madax banaanida saxaafadda somalilan waxaa la sameeyey guddi hoggaan la doortay oo isa sii doortay oo lasii qaybiyey oo afduuba oo saxaafadda madaxa banaan aanay ku jirin oo la doonayo beritoola wargeyska la xidho ama t v-ga la xidho inuu ururka solja yidhaahdo t v-gaasi qalad buu sameeyey dowladdana uu aflagaadeeyey dadkana uu aflagaadeeyey marka waxaan leenahay shirka waxaanu ka ognay ma jiro wixii kasoo baxaana waa xaaraan sidii ururada kale iyo dadka xoriyatul qowlka u hadla loo xidhay baa tana loo xidhaya furahana arari loogu wareejinaya marka waxaan kaga baxayaa guddidii qabanqaabadaynu kala dirnay waxaa nagala joogana jaxiye aadan iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo xubno kale oo ururkii saxufiyiinka solja ka mida guddida fulinta waxaanu ka ognahayna shirkaa ma jiro wixii kasoo baxana waa wax xaaraana baan leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi marka hore waxaan aada u salaamayaa bahda warfidyaanada ee telefishinada iyo websadada iyo wargeysyada ee halkan nagula sugan somalilan waxaa ka jirtay dhowr iyo 20 sano ee ay jirtay warbaahin madax bannaan runtii waxay soo martay heerar kala duwan maanta laakiin la ka taagan tahay waa meel la odhan karo waa meeshii ugu ayaan ka xumay waxba dee ku noqon mayno xadhigoodu aada buu u fara badan yahay waxaa taa ka sii daran in maanta loo yeedhiyo saxafiyiinta madaxa bannaan in ay hoggaanka cid gaar u soo doorto waxaanu ahayn dad u dhaartay si lilaahiyana hawl u waday weliba tabarucaad ku shaqaynayay oo damacsanaa in ay doortaan ama ay soo xulaan ama ay keenaan ciddii bedeli lahayd guddidii fulinta iyo weliba hoggaankii ururka saxufiyiinta somalilan ee solja maalintii ugu horreysay ee aanu fadhiisanay ayaa waxaanu aragnay inay qaar jiraan oo dee yihiin qaar dhaarsan oo meelo kale ka socda waxa loo yeedhinayna aan uu ahaa wax dibadda looga soo yeedhinayo la leeyahay waxaasi sidaasay ku qurux badan tahay somalilan saxufiyiinta ururka saxufiyiinta ee solja wuxuu ahaa urur ay leeyihiin saxafiyiinta madaxa bannaan laakiin muu ahayn urur ay leeyihiin warbaahin dee institutionadu iyo weliba dadka mulkiilayaasha markiiba waxa ay canka kaga mudeen oo yidhahdeen waxaynu u baahannahay inaynu kala saarno aynu nidhaahno ururka saxufiyiinta somalilan ee solja waxaa yeelanaya institutionada ama wargeysada ama telefishinada ama websaytada cidda iskale iyadu marka horeba dee samaysatay waxay markaa dibadda loo saaraya inanka saxufiga ah ee banaanka jooga ee isagu shaqaalaha ah runtii waxay nagu noqotay dee ayaan darro iyo waxaan u qaadan weyne waxay socotaba markii dambe waxay noqotay wuxuu dee wasiirka warfaafinta somalilan oo waktigii uu isagu dee wargeeska saxo tifaftiraha ka ahaa uu aada u necbaan jiray oo ahayd inaan dee saxufiyiinta la caburinin laakiin ay ereygooda iyo sida waxu dooranayaan iyo sida u shaqaynayaan ay u noqoto mid madax bannaan laakiin maanta waxa ayaan darro ah inuu ninkii shalay tola lahaa saxaafadda waa been oo haddii saa loo qabto wuu buraraya ee hala ilaaliyo inuu maanta isagu ku joogsaday ku istaagay isagu annagu waxaan ahayn guddi qabanqaabo anuu gudoomiye ku-xigeenkii guddidaan ha aadana wuxuu ahaa xubin cabdifataax oo naga maqnaana wuxuu ahaa xubin waanu iska casila marka ka yaabnay da sida waxu socdaan iyo qaabka tuugeysiga ee waxaan ku dhahay habeenkiina inta shiraan aroortina iyagoo waxaan ku dhahay shirayo meel wax looga soo yidho waraaqa hoostu sidee noola imi jira ayaan daro saasaan anagu isu asilay waxaanan leenahay waxa maanta kasoo baxa ma noqon doono wax noo cuntama iyo waxaanu raalli ku nahay iyo waxaanu u soconay iyo ujeeddadii aanu doonaynay waxaanan saxaafadda madaxa bannaan meel kastoo ay joogta aan u sheegaya oo fadhinteedu ay tahay inay ogaadaan in la marin habaabiye hashoodii maandeed ee islahaayeen hadhow tulo marka ay wax idin dhasho ayaa qof waliba dee naaskeeda qabsan doonaa lagama xigo lene uu maali doona laakiin waxaad ogaateen in hashii ay gabno tahay 2-4 naasna maanta la jaray aad badan naasad waa maxay tallaabada oo ah aadan cabdi ciidle isla markaana ka tirsanaa guddidii qabanqaabada shirweynaha solja halkana waxaa fadhiya madaxdii solja oo annaga halkaasi nagu magacawday
arrintan ilaa 4 bilood waxay u socotay qaab aftuuba maalintii ugu horeysay ee aan inaan isdoorano oo hawsha aanu hab daacad u galo aanu bilownayba iyaga ayaa boobay hogaankii waxaasi la tagay gudoomiyihii iyo gudidii Solja waxay soo saaray go'aan bisha February ay qabanayaan shirkii gudidii qabanqaabada haddaanu nahay sidii aanu u sugeynay in gudidii aan nala soo xidhiidho isla markaasina hawshii February aanu gallo hogaankiis yimaado la casuumo xubnihii gobolada ayaa khamiistii dhaweed waxa la soo galiyay muxuu ahaa website-da in shirkii la qabanayo oo ay qabanayso gudidii qabanqaabada qabanaysa oo gudidii annaga nala awood ahayd gudoomiye ku-xigeenkeedii najaxa xubinta ka aha Cabdifataax xubinta ka aha oo saddex inan oo waxay og yihiin iyagu wata ay yaacayaan cidna ay ka dambayso waxaanu sheegaynaa sidaa hogaanku uu iftiimiyey inaan la nagala soo xidhiidhin inaan la nagala tashan in BRDM iyo lacaga account ay kala baxaan ay leeyihiin in baabuur iyo waxyaalo lagu ay wataan waxaanu sheegaynaa axsaabta qaranka halkii looga hiilinayay waxaanu sheegaynaa cid kastoo itaal daran halkii looga hiilinayay waxaanu sheegaynaa salaadiinta waxaanu sheegaynaa hay-adaha samafalka ee xorriyadul qowlka Soomaaliland taageera in maanta xukuumadda ay albaabada u laabtay ururkii danaha saxaafadda Soomaaliland ka hadlaya Solja haddii aanu nahay xubnahana waxaan cadaynaynaa inaanan ku jirin waxna ka ogeyn arrintaasi bilowgeedii ilaa dhammaadkii haddana waxay la fadhiyo gudoomiye ku-xigeenkii gudida qabanqaabada